waxaa jira wax badan oo halis ku ah naftaada laakiin iska daa haddii lagu yiraahdo laga yaabay inaad dood ama muran ka keentid saasoo ay tahana inta badan ee aad wax baartid waa inta badan aad wax fahmaysid waxna ay isbedelayaan sokorta haddaa iska daysid muddo 30 maalin ah maxaa isbedelaya sida aynu ognahay sokortu aad ayaan u isticmaalnaa wax walba oo aan cunayno sokor ayaa ku jirto haddii quraac noqonayso haddii qada noqonayso iyo haddii casho noqonayso xitaa dad waxaa jira sokorta cabitaanka marka ay qastaan sokor kale ku sii daraya si u helaan wax macaan haddaba sokorta haddaa iska daysid maxaa isbedelaya kow xasuustaada way soo laabanaysaa laba cayilka wuu ka yaraanayaa oo 2 isbuuc gudahood 5 kiilo ayaa kaa dhacayso 3 calooshaada wuxuu u muuqanaysaa mid yar 4 maqaarkaaga wuxuu u muuqanayaa mid liisho aan nabar lahayn 5 abataad yare ayaa dareemaysaa oo ma noqonayso qof mar walbaba gaajo hayso 6 inaad isku arag murugo walaac iyo inaad ciishoonin oo mararka qaar aad diiqoonin waayo sokortu waa bilwad qarsoon waa waxa la qabsoontay aadan garanayn laakiin mararka qaar waxaa jirta waxaad u baahan tahay aadan garanayn laakiin waxaad u baahan tahay laakiin daqiiqada kadib marka aad wax sokor la aad cuntid waxa laga yaabaa jawigu inuu kuu saxsamo waayo bilwad baa u tahay sokorta haddii aad laakiin sokorta iska daysid waxaa badanaysaa inaad mar dambe walwal dareemin stress dareemin buuq dareemin walaac dareemin xitaa mararka qaar waxaa laga yaabaa adoo iska fadhiya meel iska joogo inaad ilmo iska dareentid oo istiraadi maxaa kaa qaldan sababtuna waxay tahay waxaad u baahanaysaa sokor inaad isticmaashid waa bilwad qarsoon badanaa waxaad aragtaa qof wejiga nabra ka cabanaya kadibna raadinaya dawo uu mariyo boomaato si nabradaasi uga baba'aan waxaan ku xasuusinayaa dawooyinka waxaa loo isticmaalaa external iyo internal wax gudaha iyo wax banaanka ah wax banaanka ka soo baxay ee wax gudaha sababaya haddii aad maanta dhan banaanka wax marinayso waxa laga yaabaa inay isbedelin qof walbana wuxuu ku leeyahay waxaas mar waxaas ku fiicnaaday mid xasuusnow dadka maqaarkooda waa kala duwan yahay qof walba wuxuu marsaday hadaa marsatid waxa laga yaabaa inaad ku sii dhibaatootid laakiin waa inaad dib u baartaa waxaanay halkee ka imaanayaan nabraha badan waxaas marka aad sokor badan isticmaashid waxaa kor u kacaya hormoonka la yiraahdo insulin hormoonka insulin la yiraahdo markuu kor u kaco waxaa kor u sii kacaya hormoonka la yiraahdo androgen marka laga hadlayo haweenka androgenes markuu kor u kaco waxaa dhacaysa marka in qofkaasi uu wejiga nabra ay ka soo baxaan badanaa waxaad arkaysaa qof boomaato ku ordaya ama daawo ku ordaya sokortaan iska yar inta badanaa sokorta iska yaraysid waa inta badan ee maqaarkaaga u muuqanaya liisho badanaa haddaa wiiltaan waxaa laga yaabaa timo badan haddaa leedahay magaalada marka aad tagtid boor badan markuu uu ku soo dhaco timahaaga ama waxaa laga yaabaa in bacterial badan ay soo qaadato tintu markay soo qaadato barkinta aad ku seexatid marka aad isgedisid meesha timaha ay taabtaan wejigaaga waa sensitive haddii ay taabtaan isla marka waxaa dhacaysa meeshaasi in bacteriada wejigaaga fuusho kadibna aad nabra ka qaadid mar walba habeenkii haddaad timo badan leedahay qof dhalinyaro timo badan tahay habeenka markaa sii seexanaysa madaxaaga sii dhaq oo sii nadiifi barkinta baasheedana bedel sokor badan haddaa cuntid abateedkaaga ayaa kordhaya waxaad u baahanaysaa cunno badan inta badan ee cunno badan u baahatid waa inta badan aad si cayilayso oo inta lagugu talagalay cunnada maalinta aad qaadaleed in ka badan baa cunaysaa in ka badan markaa cuntine dee waxaa loo baahan yahay in la burburiyo oo la isticmaalo haddii maalintii wax qabadkaaga uu yar yahay cunnadaadana ay badan tahay cunnadaasi waxaa loo bedelayaa xeer mararka qaar waxaa dhacda inaad daal iyo tabardarro dareentid markaa cunnada cuntid kadib sababtana waxay tahay dhiigaaga waxaa ku badan sokorta sokor markay ku badatana waxaa dhacaysa insulin resistance markuu dhaco waxaa loo bedelayaa sokortaasi fat waxaa laga yaabaa badanaa inaad ka cabatid xasuusta wax walba aad soo akhrisid wax walba aad soo baratid waxaad arkaysaa inaad ilowdid ilowshaha badana waxaa sababayso inta badan aad sokorta isticmaashid waxaa laga yaabaa xalwad inaad cuntid biskud cuntid shaaha sokor aad ku darsatid wax walbaba aad sokor ku darsatid sokortan tirada badan waxay xanibaysaa waxa la yiraahdaa ketones oo ka qayb qaato inay dhisaan nerve cells cusub haddii nerve cells badan aan la dhisin waxaa dhacaysa in xasuustaada yaraato xasuustaada markay yaraatana wax walbaba markaasi aad isleedahay qabo ama attention si aad isleedahay ma sii kartid feejignaantaada ayaa yaraanaysa badanaa waxaa dhacda inaad ka cabatid kalagoysi xanuunada badanaa waxaa sababa in dhiigaagu ay ku badan tahay sokorta dhiigaagu sokorta markuu ku badan yahay caabuq baa dhacaya caabuqaas markuu dhaco meel walbo kalagoos ah uu ku xanuunaya markaasaa leedahay kalagooskaas ay xanuunaya meeshaas ay xanuunayso sokorta iska yareey sokorta markaa iska yaraysid waxaa noqonaysaa qof miyirkiisu usoo laabtay sokortu waa dilaa qarsoon aynu fahansaneen cunno walbo aad kor u qaadid sokor ayaa ku jirta sokortu waa noocyo badan saasoo ay tahana iyadoo cunno walba sokor ku jirta haddaad adiga sokorta caadiga ahayd si isticmaalaysid naftaada ayaa dilaysaa haddaad doonaysa in xasuustaada ay soo laabato haddaad doonaysa in cayilka uu kaa yaraado iyo haddaad doonaysa in maqaarkaaga u muuqdo mid liisha ah sokorta iska yaray 3 maalin ugu horeyso waxaa laga yaabaa inaad la qabso weydid ay kugu adkaato laakiin 3 maalin wixii ka dambeeya waxaa noqonaysaa qof la qabsado 30 maalin tijaabi aniga kula hadlaya 3 sano ma cunin sokorta caadiga ah waa laga yaabaa sokorta kale oo waxyaabaha kale ku jiro inaa cunay hadday noqonayso keeg oo mararka qaar martiqaad aan tago oo aan diidi karin maadaama ay xushmad tahay
laga yaabo mar inay dhacdo isbuucii ama laga yaabo mar inay dhacdo bishii laakiin haddaad maalin walba sokor cunayso adoo lagugu talagalay 26 garaam ama 36 garaam haddii aad 100 garaam cunaysid si kastoo aad jim u tagtid iyo si kastoo aad u damcadid inaad wax baratid ama wax akhrisid waxaad noqonaysaa qof wuxuu akhriyay ilaabo waxaadna noqonaysaa si kastoo aad jim u tagtid qof bir walba aad qaadid aanan caato sababtaan u caatoobayna waxa ay tahay dhiigga qulqulka haddii sokor ay ka buuxdo way adkaanaysaa sida loo sii gudbiyo macdantii fitamiiniskii iyo nafaqadii waxaad arkaysaa qof maalin walba ku dhahaya jim ayaa tagaa waxba iskagama kay bedelayo sokorta iska daa video kalena waa soo duubi doonaa aan carbohydrate uga hadli doono laakiin inta badan aad sokorta ka fogaa kartid ka fogo haddaad doonaysa in noloshaada isbedesho iska daynta sokorta xitaa waxa ay ka qayb qaadanaysaa in caajiska iyo daalka uu kaa yaraado inaad active qof firfircoon noqotid waa saaxiibka Shahid Bizani videogan aad ka heshay asxaabtaada la wadaag wixii fikirkaaga ah comment-ka nagu wadaag meel walba dunida ka joogta Allah kugu xifdiyo naftaada waa muhiim mar walba xasuusno salaam